ciyaaryahankii hore ee Aston Villa Gabriel ayaa walaac ka muujiyay fursadaha ay kooxda Liverpool ku guuleysan karto horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan. Liverpool ayaa si adag u tartamaysa horyaalka xilli ciyaareedkan iyadoo haysata 41 dhibcood halka 3 dhibcood kaliya ay ka hooseyso hogaamiyaasha kooxda Manchester City. Laakiin xidigii hore ee reer England ayaa aaminsan in maqnaanshiyaha Mohamed Salah sidoo Mane ay ka qayb galayaan in ay koobka Afrika inay u keeni doonto hoos u dhac kooxda Liverpool maadaama natiijooyinkeedii haatan u muuqdaan mid sare marka ay haysato Mohamed Salah iyo waliba sidoo Mane. Sidoo kale wuxuu arrintaasi sii raaciyay inuu aaminsan yahay markay kooxda Manchester City ee kooxda Liverpool ay dhameystiran tahay aysan awoodeeda ay tahay mid waxba laga qaban karin. Marka City loo eego kaleeto xidiga fara badan kama baxayaan oo ma aadayaan ayuu yiri. Sidoo kale Chelsea iyadana hal xidig kaliya ayaa ka baxayo waa kooxaha kula dagaalamaya horyaalka ayuu hadalkiisa ku soo gabagabay. waayahay haddii aan markaasi sii raaco isla Liverpool kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa kamid ah markaasi kooxaha ka xamaasho horyaalka Premier League ee baqdinta ka qaba in xidiga muhiim ah oo ka tirsan safkeeda ay ku weyso tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON la yiraahdo kaasoo markaa dalka Cameroon ka furmi doona bisha soo aadan ee sanadka cusub. haddaba saddex ka mid ah xidigaha Reds ee kala ah Naby Keita oo Guinea markaa ka tirsan, Mohamed Salah oo Masar matala iyo sidoo kale Sadio Mane oo qaranka Senegal u safta ayaa la filayaa in ay markaasi matali doonaan dalalkooda bisha dambe oo Liverpool ay ka faaruqi doonaan. haddaba xidiga qadka dhexe uga dheela kooxda kubadda cagta Liverpool ee Naby Keita la yiraahdo ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ka tirsan kooxdaasi Reds markaasi looga yeero koobka qaramada qaaradda Afrika isla markaana lagu daray liiska horudhaca ah ee xulkiisa Guinea ee ka kooban 27 ciyaaryahan. Keita ayaa markaasi ka hor imaan doona saaxiibkiisa ay ka wada tirsan yihiin kooxda Liverpool ninka la yiraahdo Sadio Mane oo markaasi ay ku wada jiraan amaba ay wada galeen groupka B ee koobka qaramada qaaradda Afrika. sidoo kale xulka Guinea iyo Senegal oo Keita iyo sidoo kale Mane ka kala tirsan yihiin waxaa groupkaasi kula jira xulalka Zimbabwe iyo sidoo kale Malawi. Mohamed Salah iyo Mane ayaa dhankooda la filayaa in maalmaha soo aadan looga yeero koobka qaramada qaaradda Afrika ee xulalkooda Masar iyo Senegal oo ay ka kala tirsan yihiin. si kastaba ha noqotee muddooyinkii dambe waxaa jiray shaki markaa la gelinayay qabsoomidda koobka qaramada qaaradda Afrika ee AFCON, balse madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee Afrika ninka la yiraahdo Patrice ayaa shaaca ka qaaday in sidii la filayay uu u dhici doono tartanka oo aysan jirin wax shaki ah markaas laga qabo in AFCON uu qabsoomi waayo. Patrice waxa uu leeyahay koobka qaramada qaaradda Afrika ee shakiga la geliyay sidiisii ku jadwaleysneed ayuu markaasi ku qabsoomi doonaa, wax markaasi dib u dhacana kuma iman doono. taasi waxay ka dhigan tahay in bisha dambe uu markaa tartanka koobka qaramada qaaradda Afrika ka furmi doono dalka la yiraahdo Cameroon. dhanka kalena kooxda Manchester City ayaa lagu soo waramayaa in xidiga kooxda Arsenal ee Nuno Tavares ay u calaamadeysatay bartilmaameed macquul ah. 21 sano jirkaan ayaa Emirates Stadium ku soo biiray oo kaga soo biiray kooxda Benfica xagaagii la soo dhaafay wuxuuna boos joogto ah ka helay Gunners xilli ciyaareedkan isagoo u saftay 14 kulan tartamada idin. xidiga reer Portugal ayaa Arsenal kula jira heshiis gaaraya ilaa 2025 laakiin Manchester City ayaa awoodi doonto ama rabto inay saxiixaan qaadato si ay u burburiso qandaraaskiisa xagaaga soo aadan ama suuqa soo aadan ee January. wargeysida ayaa sheegay in Manchester City ay marar badan daawatay qaab ciyaareedka quruxda badan xidigani uu ku jiro. Pep Guardiola ayaa u arko in bedelka xidigii hore ama xidigoodii oo ku xiran Nigel Mendy madalkiisa ay u aragtay maadaama kiiskii kufsiga ay waxaan seeto ku sii dheeraanayso wali hadii la soo daayay xitaa uusan ku soo laaban doonin Manchester City.